xaalka ka taagan magaalada madaxda Muqdisho ee dalka Soomaaliya wali jaha wareer weyn ayaa ka taagan kadib kolkii uu ka baxsaday President Maxamed Siyaad Barre magaalada oo dabeeto lagu dhawaaqay in dhaqdhaqaaqa USC iyo ciidamadoodu ay qabsadeen xukunkii dalka aqalka madaxtooyadana waxaa lagu waramay in cagta la mariyay oo la dhacay habeenkii sabtidii ka hor intii aan xukunka laga ridin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyadoo markaa dagaaladu ay si baan uga socdeen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu jeediyay hadalkan oo ahaa kii ugu dambeeyay ee uu ka jeediyay raadiyoga Muqdisho ka hor intii aan xukunka laga ridin dabayaaqadii bishii January sanadkii 1991 wax badan aan ka hadlay arrintan أنا كلا شعبي الصوماليين dhibaatooyin dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay laga maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaan oo faa'iido u keenaya inuu jirin tan labaad oo ka sii xun waxa weeye haddana qoobkii bilagaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka fool xun jira kuwiya la dhacaya wariyaha laga qadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin fool xun weeye aad iyo aad u fool xun arrintaas waan ka hadlay hadda ka hor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xalaaleysanayo qof aan waxba qabin oo Soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer qof ay u banaantahay ma jirto waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay ka waantoogaan arrintaas warar naga soo gaaray magaalada Nairobi ayaa waxa xaqiijinaya in ay isugu dhawaayeen oo ay jaalayaal ahaayeen madaxweyne Siyaad Barre General Maxamed Ali Samatar in lagu daweynayo cusbitaal ku yaala halkaasi kadib kolkii lagu dhaawacay isagoo ka soo baxsaday dalka Soomaaliya General Samatar waxa uu ku socday baabuur uu ku aadayo dalkaasi Kenya waxa dabeeto dhexda ka helay dagaalyahanka dhaqdhaqaaqa Somali Patriotic Movement gabaru dhalay janankuna waxa la soo sheegay in iyadana lagu daweynayo cusbitaalkaasi dhowr maalmood kadibna waxa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay in Ali Mahdi Maxamed loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha ku meel gaarka ee Soomaaliya bismillahi arrahmaani arrahiim haygu wallahi haygu billahi haygu tallahi dalka iyo dadka iyo diinta inaan daacad ugu shaqaynayo oo midnimada Soomaaliyeed iyo cadaaladda dantayda khaaska ka hormarinayo Allahu akbar munaasabadaasi kadib ayaa Ali Mahdi waxa uu jeediyay hadalkan waxaan aaminsanahay haddii Soomaaliya caqligeeda iyo midnimadeeda ay midayso inay si degdeg ah oo dhaqsiyo ku iloobi doonto dhibaatadii loo geystay muddadii 21 sanad ahayd anigu waxaan ahay xafiis ku meel gaar ah waxaan ballan qaadayaa oo Ilaahay hortiisa ku ballan qaadayaa muddada yar oo haayo xilka inaan ku maamulo cadaalad sinaan iyo dimuqraasiya iyo diinta islaamka oo la dhowro madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka tagay dhaxal midaba kala duwan leh samaan iyo xumaanba waxa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii waqtigii uu talinayay uu dalku aad u dhismay ha ahaadeen adeegyo waxbarasho warshado wadooyin iyo mashaariic wax soo saaraba balse taariikhyahanadu waxay isku raaceen in madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uusan isku shuqlin inuu dalka u diyaariyo marxalad uu ku sii deganaado siyaasad iyo dhaqaale ahaanba isaga kadib haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre nin caynkee ah ayuu ahaa waa su'aal xasaasi ah Soomaaliduna ay maanta ku kala qaybsan tahay laakiin bal aan hor dhigo raggii la soo shaqeeyay iyo kuwii ka soo horjeeday labadaba waxaan ugu horreysiinayaa nin ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen dalkana ka soo qabtay jagooyinka wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare waa Maxamed Ali Samatar oo lagu tilmaamo inuu ahaa nin ay si aad ah isugu dhawaayeen madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Siyaad Barre waa la wada yaqaan shakhsi adag oo adeeg badan leh oo waxyaalaha qaar aanan u daciifino noocaas u ah laakiin haddana sida dadka qaar ay ka dhigayaan cruel muusan helo waxyaalo badan oo hadda loo dhoobayo oo dusha looga tuurayo ma uusan lahayn maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah mid crueltada aan ku leeyahayba oo yacni cadaawad iyo xirmaan iyo reer buu maagaa oo qabiil hebel
buu rabaa ama dabcaa in la baabi'iyo iyo waxaasoo dhan waa iska sheeko. ninka hadduu maamulka madax u yahay ma raadin karo dadku maamulayay ka mid ah in la baabi'iyo. waxaas macquulna maaha. musuq maasuq miyaa jiray? musuq maasuq miyuu ahaa isaga? ma malaynay maya ma ahayn. arrimaha dhaqaalaha uu ka fogaa inuu maarata farageliyo. dad fara badan baa waxay yidhaahdaan oo siyaasiyiinta hadda u badan iyo dadka hadda siyaasadda oo daraso waxay dhahaan wax kasta oo maanta Soomaaliya ka qaldan waxa ka mas'uulahayd xukuumadda Siyaad Barre. حتى جواب خلط أبوي وأنا نوال بنو وكرنكرا نوال وكرنكرا تاسينا ينسعونين دولدي كعانكا هل سويديو محي قبطي انتي كارتي أودي ده محا دالك وخبصومي انتي حكومك هايسي محا كبسمي دالك دولد داس كدبنا محا صوبحي هل سويديو marka xaqaa'iq markaas loo yimaado. Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu isagu ku dooday in muddada dheer ee Maxamed Siyaad Barre uu ku dhaganaa xukunka ay ahayd wadan jacayl ee aysan ahayn xukun jacayl. buugaagta iyo qoraalada la sameeyay xilliga wixii ka dambeeyay iyo waxa la yiraahdaa Siyaad Barre dictator buu ahaa 22 sano wadanka taliyay. xukun jacayl buu muddadaas uga talinayay Soomaaliya. maahan wadan jacayl buu uga talinayay. wadan jacayl يوجد لنا. محاكلة ديجا شيء كرتا شخصية ديسي. وعن كاجا شيء كرا شخصية ديسي نن حريص بدن بوها. ووجود درندتك استجا كورجيستا لا دغالم دونا انو ديلو سامحاتنا. تاسو ددي برا ددكو سامحي جيري. واد كيل كرتا. يا كميدها. ادولبا madaxda ka mid ahayd madax badan oo madaxdayadii ka mid ahayd oo ka hortimi oo la dagaalantay oo xumaysay yaa ka mid ahayd qaar ma iga xus kartaa rag badan ma xushaday ninna kuma sheegiyo ku oran ma hebel ku oran maaye adigu raac bal recordkiyo ragii la xirxiray maxaan ku yiraahdaa bal dib raac waa Umar Carte maxaan ku yiraahdaa ragii kale la xidhnaa adigu aniga hay sheegin waxa سوغرمس هاي هور أردن ألو يعني واحد هليسا سند والبا دادك تيالك كوتشي ربدن كودا ولا سامحي كري مركا أكتوبر يسو قلان إذاهي واضح بي عثمان محمد جالة وحاو كمدها قوله سرية كعانكا حلال وسير نمانا وكسو قبتي دولة داسي وحاكلا وكجري سراكيل جوين سراكسو قبتي دولة مدحوين محمد سياد بره وكون يساقال بقول يسيديتن يلبادي حبسي الله تحابي xubnaha kale ee la xirayna waxa kamid ahaa Ismaaciil Cali Abakar, Umar Carte Qaalib, Umar Xaaji Masalle, Maxamuud Yuusuf Weyrax, Warsame Cali Faarax iyo Maxamed Aadan Sheekh. waxaan weydiiyay Cusmaan Maxamed Jaalle in Maxamed Siyaad Barre uu mas'uul ka yahay wax kasta oo ka xumaaday Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1991. wala yaaba dadkeenayeen Maxamed Siyaad ayuu daafacay laakiin anoo daafacin إلهي بولان كان يقول يعني كنت الشايع بولاني ويعني مثلا إلى العدالة سميتان إلى كفوين نعاب أدولك كان نعبته وآيات ولعني وكو حوي محمد سياد هدو بحثي عن ولا تريب ولهين لها وهياي كان لها وكو جعل ويسكن بيشي لولدتك ولد بكل حيثا معانقق معهن ولا يدعى كلام محتاج حاجة ثمانين أن آدت في سوء بين محمد سياد وأسوء بحجابها آدت إلك لما ليو سنقعها فعنيه بمئة الوالد ما كان أشترك تعودة لك وانا حياجين من المعسيين ما بدا أهين ننمعقرة لكن ولا تليا الحماء حبيبتك وقفت يا محمد سياد حبيبتك لأن أنت وليس معلوم هذا لما تعلم أمامتي سنه عسكري كان ما يحسب بالله سلاك عبد الله وليس معلوم هذا والحمي ما هنا كل أهان محمي لكن بيد ما تشوف بيدك قاعدتي
cabdi warsame isaaq waxa uu la soo shaqeeyey xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre laga soo bilaabo 1969kii markii uu talada qabtay maamulkaasi ilaa uu xukunka ka dhacay 1991dii markii maamulkaas xukunka laga tuurayna waxa uu cabdi warsame isaaq ku biiray kooxihii waddanka ku soo dagaalamay waxaana uu qabaa inaan mas'uuliyadda burburka Soomaaliya dhammaanteed dhabarka loo saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre maya waxaas ma jira haddeer waad arkaysaa haddii oo dad soo galo wax u maartay noqonaya ay yihiin siyaad barre hadda waa tegay intaasna maartay la maraya hal meel ay isugu yimaadaan oo waxay ku hesheen oo ay fulaan lama arkin marka waxa weeye siyaad barre iska hadal weeye dhinaca kalena madaxda ka tirsanay jabhadihii la soo dagaalamay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre mowqif aad u adag ayay ka qabaan shakhsiyaddii iyo xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre cumar xasan gaalaguul waxa uu ka tirsanaa ururka USC wuxuu ahay nin waqti dib jiray dalka qabtay militar ahay militarkana aragtidiisa waa xadadan tahay waatan la yidhaahdo waa faras labada dhinacba aan u jeedin ee hortiisa kaliya arkaayo markii dambe waa nin marka uu xoog yeesho oo meel qabsado yani waxay noqonaysaa inuu wax la qabto ayaanta ugu horeyso oo bilaabayo wax alla waxay aadaanba oo yani nidaam ku sameeyo waxyaalaha sharci u dejiyo hore u qabto laakiin markii uu dego asi yani uu nagaado dawladiisana ay nagaato wuxuu noqonayaa nin ismahdiyey mowqifka ugu adag ee madaxda jabhaduhu ka istaageen maxamed siyaad barre waxa uu ahaa kan uu qaba ururka SNM oo colaadda ka dhacday dabayaaqadii 80meeyadii gobollada waqooyi haatanna loo yaqaan Somaliland ay si weyn u saamaysay ururkaasi maxamed xaashi cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM imika haddaan kuu soo qaado Somaliland Hargeysa magaalo walba duleedkeeda waxa ku aasan xabaalo waxa jira muxuu ahaa xabaalo waaweyn oo dadkii lagu xasuuqay ay ku aasan yihiin waa calaamad taala oo rag iyo dumar iyo carruur wax walba leh oo kolba daadku Hargeysa soo saaro waad ogay inuu jasiiro waatii inta la qaaday dadka lagu ururiyay muxuu ahaa lagu laayay jasiira waa halkay ka bilaabantay baa halka ahayd dadkana maanta magaalo reer Somaliland oo aan intan muxuu ahaa xulafada la ahayd maahe aan mass graves ku aasnayn maanta ma jiro kolka waxa weeyaan astaantaasaa meel walba u taalo raadkaasu ka tegay in siyaad barre kolka waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa shaytaan ilaahay ummad u soo diray buu ahaa kolka astaantiisa iyo xumaantiisa waxa la waxaa maanta dhacay oo dhan dembigeeda isaga muxuu waa sunnihii uu dhigay weey waxaa fikrad aan taas ka fogeyn qaba maxamed abshir waldo oo ka tirsanaan jiray ururka SSDF wuxuu ahaa sarkaal dawlado gumaysigii la soo shaqaystay talyaani iyo ingiriisba wuxuu ahaa nin muujiya inuu isku kalsan yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsan yahay wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu tuso inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive horusooda ha yeeshee muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina miraheedii waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay ma waxaad leedahay wax buu ku leeyahay waxa hadda taagan kuma laha keliyahe waxa weeye aas-aaskii dugistii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay habxumada iyo dhaqanxumada iyo qabiilka iyo kala tagga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu wax u maamulay iyo taariikhdii uu nooga tegey iyo dhaqankii uu nooga tegey rag uu ka mid yahay xasan cali mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eedda loo wada saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay maxamed siyaad barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay oo dadka xoog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra hadii maxamed siyaad barre waayo aragnimo iyo aqoon midna dadka kama badin keligiis wax la eedeeyo ma aha eedda keligii ma leh waa lala wadaaga dadkii la shaqeeyaa la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warkadaasaatan oran maxaa yeele wuxuu gaadhsiiye meel uu isaga maaha nin kala hadli karin waddan maaha meelna laguma tago marka sideedaba qof keliya yaan la eedaynin
inta kale oo waddanka joogta hal nin waa ka tashan kareen laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsanno garan ahaan ilaa haddeer ma aynan baran wadahadalka ma naqaan nin walba anoo reer hebelu ka bilaabahaya waryaa adigu reer hebel baa taa la leeyahay maba aha waddan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo warbadmiintiina la dhaafiye iyo waxaaba hadalku kuma jiro maxamed faarax jimcaale waxa uu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne maxamed siyaad barre ay shakhsiyaddiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba wallahi anu waxaan isleeyahay waagaas waa kuu sheegayoo waxaa ii muuqday dictatorship nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxaa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayoo soomaali ah oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jabjabno oo la kufkufno oo qaladno oon wax naga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinacaas positive buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inante xukun jecel oo dictatora oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jiro ah jabhadda SNM waxay sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale inkastoo aysan weli helin ictiraaf caalami ah dhinaca Puntlandna waxaa hogaamiyaashooda ay ku guuleysteen inay nabadda soo celiyaan maamul adagna samaystaan haddaba dhulka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa weli dhibaatadu ka taagan tahay iyadoo ay ku dhowdahay 20 sano tan iyo intii uu xilka ka degay madaxweyne maxamed siyaad barre deegaanadaasina ay weli degi la yihiin maxamed faarax jimcaale waxa uu isagu qabaa in madaxdii jabhaduhu ay wax badan qaban karayeen waxa weeye markaan anigu jaanis haysto aan wax ka fiican haysto aan samayn karo oo aanan samayn anuu oranay maxamed siyaad baa cashikayga iyo wax aniga sameeyay masuulka aniga sameeyay oo weyn oo nin weyn oo jaanisna haystay dadna haystay shacbiyad haystay caqli lahaa wax wanaagsan la abuuri karay marka ninka yiraahdo wixii asagu uu sameeyay waa maxamed siyaad masuulka masawir buu noqonayaa maxamed xaashi cilmi waxa uu isagu aaminsan yahay in qorshaha kooxaha koonfurta uu marka horeba qaldanaa waxa weeyaan annagu waxaanu ka bilownay geedka hoostiisa iyo shirar noo gaara oon cidina lacag nagu siinin hudheel weynna aanaan ku jirin oo geedka hoostiisa arrimihii lagu dhammaysto kolkii aanu dalka soo gallay horta kolka hore waanu ka dimuqraadisanaynoo 3 sannadood ama 2 sannadoodba madaxda waanu dooran jirray annagu mid qudhihiinima haysan jirin kolkaana waxaa charterkayaa ku qoraa 2 sannadood kolkaynu dalkii ku noqonno markaynu hayno 2 sannadood aynu ku wareejino muxuu ahaa dadweynaha kolkaas saasaa horta taasi waa meel aynu kaga duwanayn bay ahayd ta labaad waxaanu kaga duwanayn oo kale waxaanu isugu yeedhnay wax alla wixii reer somalilan qabaa'ilkii deganaa ayaanu isugu yeedhnay madaxdoodii salaadiintoodii burcaanu shirkii ku qabannay halaysa saamaxa baa la yidhi halaysa saamaxay dawlad loo dhan yahay baa la sameeyey oo laga wada qayb galay dabeetana tii dambena booramaa lagu qabtay kolka horta anagu saas ahay iyagu halkay ka bilaabayeen waxay ahayd ama qaahiraa lagu shiraya ama adisabaa lagu shiraya ama waxa lagu shirayey muxuu ahaa meel dhul dibadda Nairobi kolkaa dabeetana hudheella waaweyn iyagaa loo barto kolkaaba waxaa la geli jiray kaambeenka intaan shirka kaleba la dhammayn kaambeenka yaa madaxa noqonayaba ayay ku tegi jireen meesha kolkaasaa shirarkoodu uma qabsoomi jirin guul lagama gaari jirin waayo adii jeer waxaa ku jiray kaambeyn madaxnimo oo dawladda mid doonayso oo Masar qaar doonayso oo Itoobiya qaar doonayso oo Talyaanigu qaar doonayaan kolaba Mareykanku qaar doonayaan kolkaas wuxuu meesha la isugu tegi jiray waxay ahayd in meel campaign cusub lagu galayay ee meel aynu heshiino oo aynu dawlad dhisno oo Soomaaliya lagu soo celiyo sideedii fikradiiba ma jirin kolka hudheel weyn oo dabeetana sanadkan halkee lagu shiraya ka damba la sii qorsheynaya muxuu kolka ilaa 11 waxay marayeen mooyaane ayay muxuu imkana dii wali ma badaynin kolka waxay ahayd goor walba wax dibadda laga soo dhiso dawladda ajnabiga ku lagu leeyihiin bay ahayd xasan cali mire waxa uu leeyahay qaladka ka sokow Soomaalida waxa ilaa maanta ka maqan bisayl siyaasadeed inagoo dhan baan bisayl lahay bulsho ahaan baan Soomaali maanta yanu ahayn bariga iska daayay marka inaguna waxaan eeganaa reer hebel cudurka la yiraahdo ilaa uu ka baxo ilaa uu ka dhamaado Soomaalida ilaahay ka hanuunsho anigu ma qabo inay dawladda san karayaan maxaa jira nin kala findicilaya dadkii wadanka lahaa
innagoo laysku keendaray baa waxaa laisku qabtaa ma 7 milyan ba ama 10 milyan ba dunidu intay la egtahay fiiri dadka bani aadanka oo nool oo shaqaysanaya intay tiro la egyihiin fiiri waxa inaga isu kaaya muujiyey oo odayo aan runtii taariikhna oo qoran lagu aqoonay afkaas wax laga bartay ah anigu waa yaabanahay shacbigan maxuu la wareersan yahay madax iyo aqoonyahan iyo jinni wada aqoonyahanku dadku ka mid yahay bani aadan weey qabiilka cidi kagama badna iyaga laftooda marka ummad sidaas ku tashatay ama caqligeedii dhaafi waayey waayeel iyo aqoonyahan iyo mid kasta waa meel la gaari mayso waa ayaan darro weey meel lagu gaari maayo in indhaha inta la furo dadku la furo loo dadaalo maalin walba laga hadlo waxa runta ah Israel waa nimankii kaliya isku dayay markay kursi heleen ba iyagina ka baxeen waxay intii waagi joogtay madaxda noqotay